وعن daawadayaal meel baad joogtaan kuna soo dhawaada wararku idin haya warbaahinta nuxurka wararka qodobadaad ku daawan doontaana waxa ka mid noqon doona Kenya oo shaacisay qorsheeda xiga kadib markii dib loo dhigay kiiska badda wax garad farmaajo ugu tagay siideenta janan oo niyad kala soo laabtay saddex qodob oo muujinaya in odawaal looga adkaan karo madaxtinimada galmuduga wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay magaalada Marka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku wajahan magaaladaasi dawladda federaalka Soomaaliya oo joojisay aqoonsiga Edikaariska Hirshabeelle cabsi darteeda wararka dibadda ee warbaahinta nuxurka wararkana waxa kamid ah khilaafka aaska Roberto Mugambe oo laga heshiiyay iyo Israa'iil oo beenisay inay basaasaysay aqalka cad ee Mareykanka daawadayaal inta waxay ahaayeen qodobada ugu doorkan warbaahinta xulka wararka markaana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan dawladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday qorsheeda xiga ee kiiska dacwadda badda Soomaaliya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay ilaa 4 November wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in Kenya ay ku dadaali doonto ka hor maxkamadda in Soomaaliya ay la gaarto heshiis ka baxsan maxkamadda arintan ma ahan wax cadaan iyo madow ah hal kasta oo waara waa inuu noqdo mid labada dhinac ah waxaanu doorbideenaa heshiis laga wada xaajooda iyo Monica Juma hadalka Juma ayaa qayb ka mid ah loo fasirtay in Kenya ay u aragto go'aanka maxkamadda mid hal dhinac ah oo Soomaaliya kaliya ay doonayso sidaas darteedana jumlada ah hal kasta oo waara waa inuu noqdo mid labada dhinac ay tahay hanjabaad ah inaysan aqbali doonin go'aanka ICJ toddobaadkii tagay maxkamadda ICJ ayaa aqbashay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo hase yeeshee waxa ay diiday waqtiga Kenya ay doonaysay ahaa sanadka waxayna ogolaato kaliya in muddo 2 bil ah dib loo dhigo kiiska warka cusub ee ka soo baxay Kenya ayaa ah in ay isku dayayso in xal laga gaaro kiiska ka hor maxkamadda ayaa cadeen u ah tuunkii hore loo qabay ahaa in aqalkii Kenya ay ku codsatay in dib u dhigista ay ahayd inay qoranayso qareeno cusub oo ahaa mid aan jirin balse ay doonayso kaliya waqti dheeri ah oo ay ku cadaadayso Soomaaliya waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka loolanka doorashada madaxtinimada galmudug ayaa si xawli ah ku bilaabantay iyadoo durba la sii iclaamiyay labada musharax ay noqon kara kuwa ugu cadcada أحمد عبد القهري قرقور الله أركو إنه قرب كهلا يدولد فضل الصومالية يا عبد الرحمن أضواء أو قعنت مدحويني هراء الصومالية حسن شيخ محمود أيود حيا هردن كأوجو هذا دتك قارا يا درب بالله بين يهوسو ديجان رجدا ومشرح أضواء كقبو إنه كقول استحيل كمدحوينها قلمدوجا وحينا سبب وجود ديجان صدحنا قضبا كو فرق قبلها يحل بانا فضل قلمدوج وحد جن أو حل بانا اللوقي كو يتمن بيلودا مركل الجوجا قلمدوج وحا عادي أهن حل بانا فضل ay saameen xoogan ku leeyihiin soo xulista xildhibaanada galmudug xalfadii Cabdiraxmaan Odowa kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa waxa goobjoog ka ahaa xildhibaano 3 kamid ah 12 beelood ee daga galmudug halka uu musharax qorqor soo bandhigay xildhibaanada 12 kaasi beelood ku matala dawladda dhexe tani waxa ay muujinaysaa in Odowa uusan haysan taageerida inta badan beelaha galmudug xildhibaanada dawladda dhexe ku matala galmudug ayaa inta badan xusul duub ugu jira inay soo saaraan qof ay wataan si 2020 ay ugu soo laabtaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka aadka u faaqiday arrimaha galmudug waxay sheegayaan in musharax Odowa uu arursaday xildhibaanadii caanka ka Facebook halka uu musharax qorqor u arursaday xildhibaanadii go'aaminaya kuraasta qabiiladooda labo khilaafka cararka reer galmudug dadka reer galmudug ayaana 4 sano helin adeeg maamul waxaana sanadihii dambe ay daawanayeen khilaafka filla Soomaaliya iyo galmudug waxayna aaminsan yihiin in halkaasi wax badan oo horumar ay ku seegaan sidaas darteedana waxay u muuqataa in hadda aysan xiiso u qabin hogaamiye khilaaf abuur ah qodobkan waxa uu si weyn u saameynaya musharax Odowa oo dhawaan si dadban u iclaamiyay inuu la dagaalami doono dawladda federaalka Soomaaliya hadii la doorto saddex cadaawada loo qabo damo jadiid dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dagaal ku qaaday Guraceel iyo Dhuusamareeba sanadkii 2015 halkaas oo ay dad badan ku dhinteen wili cidna magdhow iyo raali gelin kama bixin arintaasi Odowa wuxuu xilligaas ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo qofkii u xil saarnaa arrimaha gobolada dhexe waxa la fahansan yahay in wili colaad badan loo qabo kooxda uu ka tirsan yahay musharax Odowa sidoo kale waxa uu hore meel fagaara uga weeraray kooxda Ahlusunna oo deegaanadaasi ku xoogan waa arin kale oo saameynteeda leh si kastaba waxaan wali la go'aamin xilliga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug waxaana wali socda shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo u dhaxeeya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya
dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. goobjoogayaal ayaa sheegay dagaalkan inuu khasaare xoog la soo gaaray dhinacyadii ku dagaalamay duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. inta la og yahay 5 qof ayaa ku geeriyootay oo ah dhinacyadii dagaalka ku dhexmaray duleedka magaalada Marka halka tiro inta ka badanna ay ku dhaawacmeen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. ma jiraan weli wax faahfaahin oo ka soo baxay militariga Soomaaliya kaas oo ku aadan inay ka warbixiyaan dagaalkii ka dhacay deegaanka Jilib Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhanka kale wararka ay ka helayso magaalada Marka warbaahinta nuxurka wararka ayaa sheegaya in ciidamada xoogga ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose maadaama uu halkaas ku wajahan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka. odayaal iyo waxgarad muddo 7 u joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya siideenta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dib ugu laabtay gobolka Gada gaar ahaan magaalada Doolow ayaa waxa ay sheegeen in natiijo ay ka soo bixi weeday dadaalka ay ku doonayeen inay ku soo daayaan Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga Jubbaland. odayaasha ayaa xusay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la dhaqmay si baalmarsan sharciga iyo dhaqanka sida ay warka u dhigeen. waxaan ahayn odayaashii biri haddii la xiro Farmaajo u doodi lahaa oo dhihi lahaa maxaad ku haysataan. waa uu naga soo diiday inuu sii daayo wasiirka amniga Jubbaland mana rabno inaan banaanka u soo bixinno wixii aanu kala soo kulanno ayuu yiri mid ka mid ah odayaashii Farmaajo u tagay oo saxaafadda la hadlaya. odayaasha ayaa xusay in madaxweyne Farmaajo uu ka diiday ergeyntii ay wadeen waxayna xariga wasiir Janan ku tilmaameen mid xaq darro ah. sidoo kale odayaasha ayaa sheegay inuu madaxweynaha u sheegay in wax dambi ah uu ku lahayn wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan balse xoog lagu haysto. madaxweynaha waxa uu inoo sheegay inaysan jirin dambi lagu hayo wasiirka amniga Jubbaland haddii ay sidaasi tahay waxa lagu haystaa xoog ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha. waxaan madaxweynaha uga imaanay meel fog waxaanu ahayn odayaal badan oo miisaan leh balse niyad jab ayaanu kala soo laabanay Muqdisho ayuu sii raaciyay. hadalkan ka soo baxay odayaasha ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay dhawaan sheegtay in wasiirka loo haysto dambiye waaweyn lana soo taagi doono maxkamadda. sidoo kale Amnesty International ayaa soo dhaweysay xariga wasiir Janan waxayna ku baaqdeen si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno. madaxweynaha dib loo doortay Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isna xariga wasiir Janan ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsaneyn. waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka. hay-adaha ammaanka Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay isku raaceen in la joojiyo guud ahaan aqoonsiga kaarka maamulka Hirshabeelle ee lagu galo xafiisyada dawladda laguna maro wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kaarka wasiirada xildhibaanada iyo shaqaalaha kale ee dawladda Hirshabeelle ayaa la sheegay in loo baahan yahay in dib u habeen ballaaran lagu sameeyo kadib markii xubno badan oo maamulkaasi ka baxeen qaar kalena ay al-shabaab isu dhiibeen. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii agaasimihii madaxtooyada Hirshabeelle uu isu dhiibay al-shabaab waxaana arrintaas ay sababtay shaki laga qabo aqoonsiyada Hirshabeelle loo adeegsado weeraro culus oo ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. goobaha laga joojiyay waxaa ka mid ah xafiisyada wasaaradaha iyo wadooyinka hormara madaxtooyada Soomaaliya. sidoo kale waxaa la sheegay in qof kasta oo aqoonsigaas wata in la weydii karo damiin haddii loo baahdo iyadoo aan lagu qiimeyn doonin mansab iyo xilka uu leeyahay. xubno ka tirsan golayaasha Hirshabeelle ayaa warbaahinta nuxurka wararka u sheegay in lagu wargeliyay in magaalada Muqdisho laga diiday aqoonsiyada Hirshabeelle oo si fudud gacanta ugu galay cadowga sida ay hadalka u dhigeen. ma jira wax war oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka oo arrintan ku saabsan balse waxaa xogta nala wadaagay wasiir iyo xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle. waa tahay daawadayaal halka wararkaasi aad kala socotaan warbaahinta nuxurka wararka. markaana warka dibadda. madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxaa lagu aasi doonaa qabuuraha lagu aaso halyeeyada Zimbabwe oo ku taala magaalada Harare sida warbaahinta ay u sheegeen qoyskiisa. afayeenka qoyska Leo Mugabe ayaa sheegaya in weli aan la isku raacin maalinta saxda ah ee la aasayo balse ka hor aaskiisa ayaa waxaa la sameyn doonaa xalfad qaran waxaana taasi xigi doonta munaasabad kale oo lagu qabanayo tuulada Master Mugabe. qoyska Mugabe iyo dawladda ayaa markii ugu horeysay waxaa dhex maray khilaaf ku aadan goobta lagu aasayo madaxweynihii hore ee Zimbabwe. Mugabe oo 95 sano jir ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Singapore. meedkiisa ayaa yaala garoonka kubadda cagta ee Ruvaro oo ku yaala caasimadda Zimbabwe ee Harare. kumanaan qof oo borordiiq iyo tacsi u dhigaya ayaa isugu yimid garoonka Ruvaro si ay xushmad ugu muujiyaan Master Mugabe. garoonka Ruvaro ayaa halka Mugabe lagu dhaariyay madaxweynihii ugu horeeyay Zimbabwe sanadkii 1980 kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay xurriyadda Zimbabwe kadib. madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa amaanay Master Mugabe kuna tilmaamay halyeey qaran taas oo muujinaysa in lagu aasayo xabaalaha geesiyaasha Zimbabwe loona sameeyo borordiiq qaran.
wasiirka waxbarashada ee Paul Mavima waxa uu sheegay inaysan shaki ku jirin in Mr Mugambe loo aasayo sida haliyay qarana. Mr Mugambe ayaa shaqada ka eriyay Mr Mnangagwa sanadkii 2017. Mnangagwa iyo Mugambe ayuu khilaaf soo kala dhex galay markii uu ka shakiyay inuu xukunka kala wareegi rabo. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa si cad u dafiray wararka ku saabsan inuu dalkiisa basaasay Mareykanka. Saddex saraakiil oo sarsare ayaa sheegay inay u badan tahay in Israa'iil ay ka dambeysay saddex aaladood oo kuwa wax basaaso oo laga helay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo. laakiin warbixin laga soo saaray xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakiisha uu yahay mid aan xaqiiqda ku salaysleen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayay wariyaashu weydiiyeen wararkaasi ku aadan basaasnimada lagu eedeeyay Israa'iil. Ayuu Donald Trump sheegay inuusan aaminsaneyn in Israa'iil ay basaasayso Mareykanka. way adag tahay inaan aamino arrintan sababtoo ah xiriirka ku aadan Israa'iil aad buu u wanaagsan yahay ayuu yiri Donald Trump isagoo soo xiganaya ka bixitaanka heshiiska nuclear-ka Iran iyo go'aankii muranka badan dhaliyay ee maamulkiisa oo safaaradda Mareykanka ugu soo rarayo Qudus. ma aaminsani warkaasi wax kasta waa suuragal balse ma aaminsani eedeynta Israa'iil loo soo jeediyay ayaa waxa lagu daabacay wargeyska Politico. Taleefano caalami ah loo yaqaan Eastern Rise ayaa la sheegay in laga helay meel aan sidaas uga fogeyn madaxtooyada Mareykanka iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala Washington. aaladahan ayaa waxay u shaqeeyaan sida mobilada waxayna sheegaan macluumaadka goobta oo qofku uu ku sugan yahay iyo xitaa macluumaadka kale ee wicitaanada. mid ka mid ah saraakiishii hore ayaa wargeyska u sheegay in aalada Eastern Rise ay u badan tahay in loogu talagalay in lagu basaaso madaxweyne Donald Trump waxaana sargaalkan sheegay inaysan cadeen inay ku guuleysteen basaasnimadooda. FBI-da Mareykanka oo baaritaan ku sameysay halka ay ka yimaadeen aaladahan way iska cadeed in Israa'iil ay ka dambeysay ayuu Politico u sheegay sargaalkan hore. waa tahay daawadayaal waa naga intaa war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray aad kala socoteen warbaahinta nuxurka wararkan war lamid intaan ku kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan u leenahay sida iyo nabadgelyo.